wasaaradda horumarinta maaliyadda Somaliland ayaa kulan wada tashi ah u qabatay agaasimayaasha cashuuraha iyo la taliyayaasha dhinaca sharci ee 12 degmee dawladaha hoose dalka. Kulankan oo ahaa maamul daadejinta dawladaha hoose GPLG-ga loo yaqaano ayaa ujeedadiisu waxay ahayd dib u eegis in lagu sameeyo cashuuraha dawladda dhexe ee Somaliland ay qaaday iyo kuwa dawladaha hoose iyo sidoo kale sidii iskaashi looga yeelan lahaa wasaaradda horumarinta maaliyadda Somaliland iyo dawladaha hoose dalka sidii cashuur ururinta loo sameyn lahaa. ugu horreynba waxaa halkaasi ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta maaliyadda Somaliland Maxamed Cabdi Gurxan oo faahfaahin dheer ka bixiyay ujeedada kulankan aad nagala soo qayb gasheen ee idinku casuunay ee ujeedadiisu ay tahay sidii aynu dawladaha hoose iyo dawladda dhexe ay uga wada tashan lahaayeen amba ay iskula eegi lahaayeen nidaamka maamulka cashuuraha iyo faahfaahintooda. marka sidaynu ogsoonahay waxaan ka wada shaqeynaa mashruucan la yiraahdo JPLG-ga qaybtiisa LDF-ka waxa qorshaha wasaaradda maaliyadda ku jirtay marka laga yimaaday wasaaradda maaliyaddu inay qoondo kab ah amba kaalmo ah ay ka geysato mashruuca JPLG-ga LDF-ka. waxa kale oo inta badan mashruuca noogu jira inaanu idinka caawino amba ay iska kaashadaan dawladaha hoose iyo dawladda dhexe nidaamka maamulka maaliyadda, habka xisaabaadka iyo habka sameynta miisaaniyadda iyo dakhliyada iyo nidaamkooda oo dhan. kulankeennan waxa laga filayaa ugu dambeyn bari haddii alla yiraahdo inay inooga soo baxdo inagoo isla fahamsan in dhammaan dawladaha hoose ee ka soo qayb galay tababarkan amba kulankan wada tashigu inaynu isla meel dhigno midaynta dakhliyada kala duwan ee ay dawladaha hoose qaadaan. tusaale ahaan dawladda hoose ee Hargeysa faahfaahinta dakhliga ay qaado dawladda hoose ee Boorama ma la midba, dawladda hoose ee Gabiley ma la midba, Taceergaaba ma la midba. inaynu midayno ilaha dakhli ee dawladaha hoose ay qaadaan inagoo mar walba hor dhigayna sababaha sharci iyo maxay reference-yada sharci ee ay ilaha dakhli ku taagan yihiin. qodobadaynu iskaga mid ka nahay baynu bari dul istaagaynaa haddii alla yiraahdo. markaynu qodobada dakhli aynu iskaga mid ka nahay dul istaagno ayaynu falanqeynaynaa sharciyadooda iyo nidaamkooda. markaynu marxaladda ka gudubno ee aynu isla aragna inaynu labada cashuurood amba saddexda cashuurood aynu ka simannahay labadeena maamul, waxyaabaha aan doonayna inaad ka tala bixisaan waxa ka mid noqon doona maadaama hal macmiil oo degmo jooga loo adeegayo cashuurta dawladda hoose sharciga u yeelatay dawladda dhexena ay sharciga u yeelatay ee hal cashuur bixiyo oo degmo jooga laga qaadayo inaynu ka tala bixino muwaadinka majeebka dawladda hoose ma dawladda hoose inoo qaadi doonta haddaanu nahay maaliyadii oo nagu soo wareejin doonta sida dakhliyada kale inoo qabato, mise dawladda dhexe ayaa cashuurta inoo qaada oo idinku soo wareejin doonta sida 10% si maalinla ah, mise waynu kala joognaayo cid walbaaba halkeedaas aynu ka gurannaa oo macmiilkii labadeenuba albaabkeenu wada garaacnaa ayaa ka soo bixi karta. intaas ayaan waxaanu filaynaa insha Allah dhamaadka wada tashigan inagoo isla wada fahamnay si guud u wada fahamnay noocyadeenii cashuuraha oo midaynay dawladihii hoose oo isla fahamnay xayndaabka labada maamul ay ku kala duwan yihiin dawladda hoose iyo dawladda dhexe oo isla fahamnay tala bixinta sidee baynu u fudaydinaa inuu seminaarka amba nidaamkan wada tashigu uu bari inoo soo xidhmo ayaanu insha Allah filaynaa. marka waa kulan wada tashi ee kulan fariimo maamul oo decision lagu qaadanaya aad qaadanaysaana maaha. waa kulan marka nidaamka sharciga waxaynu qaadanaynay ee aynu ku maamulaynay aynu isla eegayno dhinaca kale oo ay isbarasho oo kala ah noocyadeena cashuuraha aynu isbaranayno iyo sidaynu u maamulno.
marka inahaasu kulley ku koobnaan doonaa wada tashigeenani ugu dambeyn aad iyo aad baan idinka mahad celinaynaa agaasimihii sharciga idinka la taliyaashiini sharciga agaasimayaashiini maamulka iyo xisaabaadkii iyo la taliyaashii kala wada joogtaan marka waa kulan dalka aynu ugu adeegayno sidee baynu u fudaydinaa amba sidee baynu iskula fahansanaanaa waxa aynu wada qaadayno oo المنتخب الاسباني بليند على القائم الثاني على طريقة فان باستين وهذه جول هذه اختيرة وهذه جول دياغو كوستا اللي هي لعنة سلفادور شيء كبير السلسعو halkani waa istaadiyaha Lusail ciyaaraha koobka qaramada kubadda cagta adduunka haddana goolkulaadka ciyaartooyga Cabdilhani baa isu diyaarinaya oo la laagay fursadda ee goolaadka شيء كبير السلسعو kala soco ciyaaraha koobka adduunka ee dalka Qatar internetka xawaaraha leh shirkadda Samtel adigoo isticmaalaya hal eber hal Samtel caalami